مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن. waxaan halkan saaka ka bilaabaynaa cashiro dhowr ah oo ku saabsan qoyska. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. cashiradan iyo silsiladaha taxanihii waa barnaamij aan u duubay hay-adda la yidhaahdo المنهاج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إلهي waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu xaqa nagu sugo inta aynu nool lahay. aajaasha iyo geeridu markay timaadana iimaanka iyo wanaagga uu nagu oofsado, aakharana kuwa u naxariistay uu nagu daro. ikhwaanii wa akhawaatii jamiican, dhammaan walaalaha i dhagaysanaya ama daawanaya ama ereyga iyo codkayga uu gaari doono, waxaan halkan saaka ka bilaabaynaa cashiro dhowr ah oo ku saabsan qoyska. cashirada waxaan rajeynayaa inay koobnaadaan oo mar walba hal qadiyadoo ka mid ah oo urursan ama wax mideynaya uu jiro oo ku saabsanaado. waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaalaa qoyska waxa looga jeedo iyo muhimadda uu leeyahay. waxaa kaloon ka hadlaynaa asaaska qoyska, aasaaskiisa iyo dhismihiisa, iyo inta qoyska wadaagaysa iyo guriga waxyaabaha inay tixgeliyaan oy qiimeeyaan ay mudan tahay. waxaa kaloon wax ka tilmaami doonaa haddii alla yidhaahdo qoysku marka uu dhismo qaabka loo haga ee loo maamulo. waxaa afraadan insha allahu tacaala wax ka dhihi doonaa qoysku waajibaadka iyo xuquuqda ay isku leeyihiin ama kala leeyihiin. waxaa shanaadoon insha allahu tacaala wax ka dhihi doonaa haddii dhib iyo qaylo soo baxdo qaabka ay tahay in loo xalliyo. waxaa kaloon ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo hadday xal yeelan weydo qaabka loo kala baxayo. intaasi waxay noqon doontaa qoyska isugu dhismiya bilowgiisa, sida loo dhaqee loo wado, dhibka sida loo xalliyo, iyo hadduu xallismi waayo sida loo dhammeeyo. inahaas qodobo ku saabsan iyo kuwo kaleba ayaa cashiradeenna xiriirka ah
iyo xalaqadaha isdaba joogii insha allahu tacaala ay ku saabsanaan doonaan. cashirkeenna ugu horeeya maanta ee fadhigeennan aan kusoo qaadanaynaay wuxuu ka koobnaan doonaa laba arrimood. arrinta koobaad, qoys waxaa looga jeeda waan ka hadli doonaa. arrinta labaadna, muhimadda uu leeyahay iyo fawaa'idda uu leeyahay iyo hadafka qoyska loo dhisana iyana insha allahu tacaala waxbaan ka dhihi doonaa. labadaas oo cashirkeena ugu horeeya maanta ku saabsanaan doonaa. markaynu leenahay qoyska, laba dhinac labadaba waa laga egaa qoys maxaa la yidhaahdaa, laakiin waxa aada innaga muhimkii inoogu siihi waa waxa dhaqankeenna wanaagsan iyo diinteennuba isku raaceen waxaa qoyska la yidhaahdo. qoysku waa aasaaska ama unugga ay ka aasaasanto reer meel degan, waxaana asal u ah laba isqaba oo aabbiyo hooye ka noqon doona haddii ubad iyo ilmo yimaadaan. saa darteed baa waxaynu leenahay qoysku marka uu kooban yahayna waa nin iyo naag ama nin iyo xaaskiisa. marka uu la baahiyey uu fidee tarmana ubadka iyo ilmuhuna waa soo galaan, ahalka iyo qaraabaduna waa soo galaan, oo waxaa soo gelaya waalidkii qayb ka mid a, walaalihii iyo wixii ilmee la dhalay. saa darteed baa qoyska waxaa la yidhaahdaa asaaska kooban ee u horeeyana labada tiir buu ka aasaasmaa, kadibna unug dhisan oo aqal ah oo lasoo hiigsado oo marti iyo mudana leh buu noqdaa. waxa asaaskan ka hadlaynana waa inta ugu muhiimsan ee qoyska islaazima oo laba tiirna ku bilowda marka dambena saddex noqda. labada isqabay ku bilaabataa, marka dambena qodobka saddexaad iyo udubka saddexaad waxaa noqda ilmaha iyo caruurta. haddii mid afraad la yidhaahdana qaraabadiiyo martida xigaalka ah ee xurmada iyo dhaqaalaha mudan baa qoyska dhinaca ka soo noqdo, iyagu qoys dhisan bay soo hiigsadaan, ilmuhuna qoys dhisan miro u dhalay buu noqdaa. saa darteed qoyska aan ka hadli doonaay waa labada isqaba ee gurigii iyo reerka iyo qoyska asaaska u ah iyo waxa ay dhalaan oo ujeedooyinka ay u dhiseen ka mid a. halkaa waxaad ka garatay miisaanka sharcigeennu. qoys ma aha laba nin oo iskaabulo ah, qoys ma aha dumar iskaabuloo keligood meel isugu yimid. qoyska aan ka hadlayna ma aha. mafaahiimta ama mabaadi'da laga yaabo maanta horumar iyo ilbaxnimo in laga dhigayo, bariga iyo galbeedkana inooga imanaya, galbeedku haba u badnaadee, waa qoys in loo yaqaano laba nin oo isqaba ama loo yaqaano laba naagoodoo isqaba oo aan ka duwanayn iskaabuladii. mar dambaan dib uga hadli doonaa insha allahu tacaala qaybo arrimaha khuseeya iskaabulanimada qoys wada degan oo haddana iskaabulaa markaan qoyska maamulkiisa ka hadlayo. laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo qoyska aynu ka hadlaynaay waa qoys rag iyo dumar ka kooban. laba dumarana maaha, laba ragana maaha. sharcigeennuna uma yaqaan laba nin maba ogolaba inay isqabaan, laba dumarana ismaba qaadan karaan. saas darteed qoys sharci aqoonsan yahay maaha. innaguna dad muslima haddaynu nahay sidaasaan dhaqan u leenahay. laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda dhaqamo kale in lagaaga dhigo, maadaama xadaarada iyo ilbaxnimada lagaaga horeeyo, adna iyaga aad daba socoto inuu horumar lagaaga dhigo. halkaa markaan marayo dhacdooyinkii soo maree xasuusta mudnaa ee raadka iga tagay waxaa ka mid ahaa, waxaan tagay South Africa ama Koonfur Africa. ninka hadda ilaa hadda intaan ogahay madaxweynaha ka ahaa Jacob Zuma la yidhaahdo, waa wuxuu ka hadlayay halnaa ka badan rasqabo iyo reer galbeedka oo sheekooyinka arrinna yidhi xuquuqul insaan iyo xuquuqda haweenka ka hor imanaysa. runtii mowqif adag buu istaagay oo wuxuu yidhi war annagu
dan baa inaga dhaxaysa galbeedka dalka iyagana waa gumaysateen dadka iyagana khayraadkiisi waad la baxdeen haddana ma waxaad doonaysaan dhaqankiinii inaad ilbaxnimo nooga dhigtaan idina dhaqan baad leedihiin annana dhaqan baan leenahay kiina hadduu hal haweene keliya in la guursado yahay waxaa kaloo ka mid a laba ninna inay isqabaan laba naagoodna isqabaan annaga dhaqanya kaya ka mid maaha buuhi laba nin oo isqabiyo laba naagood oo isqabiyo waxaas dhaqankiina idinku gaar yahay annana kaayagaan leenahay war wixii dana naga dhexaysaan ka wada hadalno waa waqtii ilaahay hore inoo yidhi lakum diinukum waliya diin horey bayna usoo dhacdo hadda ma cusba laba ninoo isqaba ama laba ninoo wax iska doonanaya horey usoo dhacday ninkii diidana la dacaayadeeyo laba handadoo dhib baad geysatay la yidhaahdo oo qowmu luut baa nabi luut ku yidhi akhrijuu aala luutin min qaryatikum inahum unaasun yatataharuun waxaan rabaa inaan idha haddaba islaamku iyo dhaqankeenna wanaagsani laba nin baa isqaba qoys maaha laba naagood baa isqabana qoys maaha qoyska waxaa asaasa nin iyo haween isqaba sidaa darteed waxaan leenahay kow waa inay rag iyo dumar kale yihiin qoyska waxaa asaasaya laba waa inay qaab sharciga waafaqsan oon dib uga hadli doono insha allahu tacaala ay isugu yimaadaan iskaabula wada degtay qoys maaha dhalinyaro wada tumanaysana qoys maaha dadaan dariiqii sharciga isu soo marinna qoys maaha waa dad ay quman tahay habboon tahay in dembigay galeenna lagu qaado iyagana la kala cayriyo annagana waxaan hadda ka hadli rabnaay waa qoys dhisan oo dhismihiisa iyo dhaqan wanaagiisa laga hadlayo saa darteed marka koowaad waxaynu nidhi waa rag iyo dumar inay kala noqdaan qoyska waxaa dhisaya marka labaadna waxaynu nidhi waa inuu soo maro qaabkii sharciga ahaa ee qoyska lagu dhisi jiray waa in lasoo maraa qoyskaan sidaa ku dhisnayn jiritaan ma mudna ciddii dembi gashayna dembigeeday mudan tahay inta dambana in lasoo afjaro oo la joojiyaa habboon saa darteed jiritaankiisaba meesha inooma yaal intaa kadib qoyska intaa ka kooban haddii aynu intaa isla garanno oo aynu horena usoo nidhi labana waa ka koobmaa mirana waa ka dhashaa ilmo weeye qaraabi iyo dad dahal ahna waa soo dugaalaan oo waa dugsadaan qoysku haddaan ballaadhino intaba waa soo wada galayaan laakiin asaaska hore iska dhismo aynu ka bilowno qoyska marka la dhisaya qaybta labaad ee aadka muhimka ee qofku inuu dareemo loo baahan yahay qoyska iyo guurku dad badan baa qalad ka fahansan dad badan baa waxay u haystaan inay keliya mutcata oo waxay labada qof baahi dareen ay qabaan ay isku gudanayaan laakiin sharcigeenu taa ma diidana laakiin waxbuu ku daraa oo waxaynu leenahay qoysku mutca oo mas-uuliya wey xil iyo mas-uuliyadna waa la qaadayaa tan kale adigu rabtayna waa la gaarayaa laakiin intaa keliya ma aha markii qoyska la dhisaya sharcigeennu qaab iyo aadaab buu u sameeyey qaab loo dhisana waa sameeyey ujeedooyin waaweyn baa laga leeyahay ujeeddada koowaad ee laga leeyahay waxaan dhihi karnaa qofka bini aadamkii khariize iyo wax ilaahay subxaana wa tacaala dareen ilaahay ku beeray buu leeyahay oo shahwo ah haddaan dariiq sax iyo wanaaga loo furinna meel xun bay gashaa saas darteed in dariiq loo furo wanaagsan wax wanaagsanna dhala oo dadku dareenkiiyo baahidii shahwadooda ay ku gutaan wax badanna diintoodiina ugu badbaado dunyadoodiina fawaa'id ka gaaraan baa loogu talagalay nabigeena sala allahu alayh alih wasalam markuu dhalinyarada la hadlayay wakiil ahaa yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj ninkii guur awoodaayay ha guursado dhalinyaroy fa inahu agadu lilbasari wa axsanu lilfarji indhahaagu inay meelo fiirfiiriyaanna guurkaa xakamayn kara oo xaajadaadii waad gudatay in xubinkaaga taranku xaaraan ku dhacana
guurka xalaasha ah kaa badbaadin kara oo de xalaal baa waxaad rabtay aada ku heshay. si gaaruu nabigu dhalinyarta ula hadlay, waayo inta badan dadka aan reerka lahayn ee hore u guursanin waa dhalinyaro. marka labaad inta u badane dhibka shahwadu uu hayo meelo xunna kala dhaadhacdaay waa dhalinyaro, ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan. laakiin hadda dhalinyarada ragga ah lala hadlayaa si gaara, waayo waxaa mas-uuliyaddii xilka inay qaadaan la doonayo ee awoodooda lagu xirayaa iyaga wey. saas darteed hadafka koowaad waxaynu leenahay ee guurka loo guursado qoyskana loo dhiso waa hadaf sharciguna leeyahayoo dadkii dareenkoodii xalaal iyo dariiq wanaagsan in la aadiyo. waana hadaf uu qofka rag iyo dumarba guursanaya, wiil iyo gabadhba uu leeyahayoo baahida dareenka ee uu qabo inuu ku gaaro saan diintiisii wax u dhimaynin. taasi waa hadafka koowaad. xadiidkaana nabigu ku sheegay sala allahu alayh waalihi wasalam. labadaa faa'iiduu leeyahay. indhahagu meelaha inay warwareegaanoo qofkay ku dhinac maraba isha aada la raacdo, waxyaabaha xunxunna aada daawato uma baahnid. haddii meel wax laga cunayo nin gaajaysan baa cuntada fiirfiiriya, laakiin haddii aad dharagsan tahay cuntada la wadwado waxaad ka fiirisaa ma jiraan. mid labaadna way leedahayoo xaraam inaad ku dhacdo oo aada dambaabto baad kaga badbaadi, bal ajir baad ku heli adigoo shahwadaadii gudanaya. walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sadaqaadka ka sheekeynaya wuxuu yihi wa fii budci axadikum sadaqa, isu tagitaanka xalaasha ahna ajir baa laga helaa. saxaabadii way yaabeen, waxay rasuulka ilaahi yaati axadunaa shahwatah wayakuunu lahu calayha ajr, maanigoo shahwadaydii iyo xaajadaydii gudanayaan haddana ajir kasii helaya. markaasuu yihi ara-ayta in wadacahaa fii xaraamin, haddaad xaaraan samaysa ka waran akaana calayhi wisrun, dembi ma dambaabi lahaa? markaas waxay dhaheen haa, hadduu xaaraan sameeyo waa dambaabaya. wuxuu yihi kadalika sidoo kale hadduu xalaal ku sameeyo ajir buu ka helaya. maxaa ka fiican inaad xaajadaadii iyo dareenkaaga iyo baahidaadiina gudato, ajirna aad ka hesho ilaahay ajirkaaga qoro, waa waxaaga wax lagugu darwaay. taasi waa hadafka koobaad. sharciguna uu leeyahay markuu habaynayo qofka muslimkaana qoyska markuu dhisayo guursanayo rag iyo dumarba danta iyo hadafka laleeyahay mid kamida wey kaa kowdhi. hadafka labaad, dareen kale iyo rabitaan kale oo dadka ilaahay ku beeray baa jira, oo ah qofka inuu wax dhalo, waladii ilmana yeesho u baahan yahay. walidaalika markii reerku ay isguursadaan waqti marka la joogo haddaan ilaahay waxba siinin welwel iyo fikir baa bilowda. isbitaal tag, dhakhtarkan aad, isa soo baadh, see wax u jiraan, wadaad u tag, qur-aan isku akri, taxliil soo tufo. oo hadda baahidii iyo dareenkii shahwadu la guday oo waa la hayaa, gurigiina waa la haystaa, calooshiina dharagtaya, maxaa kaloo la rabaa? weli qofka qalbigaa gubanaya, wuxuu dareemayaa inuu u baahan yahay ilmo inuu dhalo. ogow ilmaha aada dhalaysaay suuq lagama gato, sharikado kuu samayna ma jiraan, waa hibe ilaah bixiyo, cidduu doonana siiyo, siduu rabana u siiyo. oo ilaahay baa horay u yidhi lilaahi mulku samaawaati waalard yakhluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dhukuur aw yuzawijuhum dhukraana wa inaathan wayajcalu man yashaau caqiima inahu caliimun qadiir. ilaahay baa cirkiya dhulkaba iska leh, wuxuu doonana isaga ayaa abuura. qofkuu doono gabdhuu siiyaa, qofkuu doonana wiilal buu siiyaa, kuu doonana wuu isugu daraa, kuu doonana mid aan badhelin buu ka dhigaa. hibadaa ilaahay bixiyo baa mudan ilaahay in badan in la weydiisto, isagana la raali geliyo si waxaad rabta looga helo. hibadaa ilaahay baa haddii la waayo reerku burburaya. ninkii waxaad arkaysaa leh bal islaan kalaan fiirin, iyadoo le anigana niyow iska kay fasax, calafkaygaan doonan. calafka ay doonanayso shahwe inay gudata maaha keliya, taa wayba haysataa. waxa ay raadinayso waa qaybtii labaad
oo dareenku waalidku waalid inuu noqdo wuxuu dhalayna arko waa wax nafta bini aadamku u baahan tahay xataa ambiyada ilahi ku yidhi subxaana wa tacaala wajacalnaa lahum aswaajan wa dhurriya carruur baa ilahay siina nabiyullaahi zakariya waa kii ilaahay baryay subxaana wa tacaala ilaah rabbi hablii min ladunka dhurriyatan tayibatan inaka samiicu ducaa ilaahu carruur wanaagsan isii markay wanaagsan tahay bay waxtar tahay carruurtu ilmahaasi ilaahay ku siiya subxaanahu wa tacaala dadkii waaye maanta ilmahay dad dhaleen bay gadanayaan ama xadayaan maalin kastaba sharikada ilmaha xadoo dadaan waxba dhalin ilmo uga dhiga in la siiyo waay waa kan la qabqabto ilmaha maxaa laga rabaa marka ilmaha 3 baa loo rabaa 3 baan ku soo ururin karaa waxa ugu muhiimsan ee ilmaha loo rabo kow wax badan oo dareenka qofka ah oo nafta bini aadamku isaga baahan tahay baa ilmuhu buuxinaya saa darteed baana dhibkiisa iyo oohintiisa iyo qayradiisa iyo kharashkiisa loogu adkaysanaya mid labaadna waa yahayoo adduunkana manfaco iyo waxtar waay aakharana manfaco iyo waxtar waayo qofkii u hagaajiya labadoodaba adduuniya aakhiro 3 arrimood aan waxoogay haddaba mid walba wax ka faahfaahiyo midda koobaad dareen qofku qabo baa ilmahani u fulinayaa marka koobaad qofku wuxuu u baahan yahay sidii isagaba uu wax uga hadhay waalidkii iyo dadkii dhalay walad iyo farac ilmo ka hadhu u baahan yahay oo ilmaha ilaahay wuxuu ku magacaabay ziinatu lxayaati addunya almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati addunyaa waalbaaqiyaatu alsaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala almaalu walbanuun xoolaha sida loo jecel yahay naftu u jecesha waa aragtay iyo ilmaha iyo wiilashu quruxda adduunka way adduunku wuxuu qurux yahay markaad ilmaha dhashay hesho ziinadii naftu ay jeclayd buu ilmuhu ka mid yahay inaad daawato walidaalika ilmaha aad dhashay waa ka keliyeed u ogoshahay inuu kaa fiicnaado haddii la yidhahdo hebel baa kaa fiican waxoogay hinaasaa ku qaadi laakiin haddii la ilmahagu waaba kaa fiican yahay waad farxi halka uu kaa joogo isagaad la jeceshahay inuu kaasii fiicnaado isagaadna u ogoshahay markay ilmuhu guriga joogaan ay meelaha joogaanna buuqooda wuu ku yar dhibi laakiin waxoogay haddana buuqoodii haddaad weyday qayladoodii walwal iyo naxdin baad bilaabi xaggay ahdeen maxaa ku dhacay hadduu ooyo hurdo ku qaban mayso hadduu gaajaysan yahayna gaajo dareemi maysid wixii aad heshay isagaad horumarin iska daa aadamahee shimbiraha sooma arag iyo xoolaha waa wax ilahi subxana wa taala qalbiga ku xiran intaa wax dheer buu leeyahay ilmuhu qofka bini aadamkiihi shahwatu ri'aasa ku jirta inuu xukumu rabaa qof walba meesha uu xukun aan cidi ku haysanin oo amar iyo nahya ka helo kow waa ilmihiisa saayaan saahiyeeli fariiso istaag saa maxaad u yeeshay amarka maxaad u khilaaftay bini aadamku xukun iyo jago iyo maamul wax ka jecel lama arag walidaalika midaad dirsato ood xagga yeel dhahdo ood amarto ood nahyido oon cidna kugu haysanin bacdallahi jala wacala waa ilmahaaga taana shahwo bini aadamku leeyahay weeyo inuu wax amro u wax nahiyo doonayo meeshan waa ka helayaa dawlad dhan baaba tahayba markaad dhowr ilmood mid xagga u dirto mid xagga u dirto mid xagga u dirto mid xagga canaanad mid soo noqo dhahdo mid hawshaa kuu soo qabtaay nin dawlad maamulaya ciidanka iyo wasiirada kala dirsanayay masaafada un baa gaabane baa tahayba intaa waxaan rabaa inaan kuu tilmaamo shahwada uu ku faanayaa qofku haddaba ilmaha intaasoo ilmood baan leeyahay intaasoo caruuraan leeyahay intaasoo caruuraan dhalay waxaa lagu faanayaa waxaa loogu faanayo inuu qofku bini aadamku wuxuu ku faana haysto oo wax weyn la ah oo dadka qaarkii inuu kaga fiican yahay ilaahay ka badan uu siiyey ay tahay waa shahwo bini aadamku qalbigiisu dareemayo taasi waa wataan idin lahaa waa fitra ilaahay subxana wa tacaala bini aadamku ku beeray inay wax dhalaan xayawaanaadkii wax dhalaya laakiin waxay macno beeleen meelaha qaarkood markay mushkilad keliya noqdeen hadda galbeedku waa sii gabaabsi oo waayeelkaa ku batay ilmihii iyo eygaa la tartansiinayaa waxaa leeyahay mid baari ah
oo meeshaa u dirta aan ku diidaynin oo haddaad fadhiisan dhahda fadhiisan oo haddaad kac dhahda kici oo haddaad seexan dhahda seexan oon hadal kugu soo celinaynin ilmo ka fiican qayladiisiiyo oohintiisiiyo amar diidadiisiiyo markuu 16 gaaro dhal waraabe iyo dhal xayawaan noqonayo iska dhaqaaqaya aan ahayn haddaad cayrisay ridda ku istaagi haddaad qadisa ku waardiyeyn ma rabtaa lacag ma ku rabtaa eyga waay eygii baa ilmo looga dhigay marka maantana ey baa la gadi ganacsan ey baa la gadi ey baa la wadwadaa waxaa keenay fitradii iyo qawaaniintii ilaahay basharka ugu talagalay baa lagu ciyaaray faa'iido labaadna ilmuhu waa leeyihiin waa faa'iido adduun faa'iidada adduunka ay leeyihiin markii ziinada iyo kufaanka laga soo tago laba aan ka soo qaato inta ay yaryar yihiin waad adeegsataa halkaasaad fadhiisan biyaha ii keen kabaha ii keen biyaha suuqa iga soo adeeg waxaa ii soo qabo telefoonka ii keen waa adeegsan maanta oo dhanoo waa gacan yare gurigii bay hooyadii kala shaqayn aabbihii bay shaqadii kala shaqayn aabbihii bay usoo adeegi hooyaday usoo adeegi qaraabadii iyo ahalkii iyo dariskii bay anfici waa manfaco weyn weyn oo waad ku intifaaci inta ay yaryar yihiin marka ay weynaadaan wax badan iyo dadaal badanna aad gelisa haddii ilaahay kuu wanaajiyo adigana aada waayeeshana waad ku intifaaci maalkoodii bay kugu caawin xoogooday kugu caawin ciilkiiyo ciddii ku dulmiday kaa caawin waa xoog ku garab taagan oo adiga ku difaacaya adoo duq waa yeeli ah waa xoog ku garab taagan oo markaad kici weydo garabka ku qabanaya waa xoog ku garab taagan oo xoola kugu bixinaya markaad xoola yaraysee gabtay imisaa ilmo aabbiyo hooyadood iyo ahalkoodii biila si adigu waalidkaa wax u biili jirtay buu kuu biilayaa markii la waayeelo qofkuna tabar gabo waxaad aada ugu naxaysaa ciddii aan wax dhalin ilmo ay dhashoon gacan qabata ama xataa xaajo gudashada meesha lagu xaajo guta geyse aan haysanin arrin mixnadoo dhib badan wey halkaasna garab bay kuugu noqon markii cadowku soo weerarana garab bay kuu noqon markaad xooggoodii iyo xoolahooda u baahatana garab bay kuu yihiin manfacadii xooggaaga iyo xoolahaaga iyo caqligaaga marka yaraa inaad ku bixisay haddiiba ajal iyo cimri kugu simo iyagana ilaahay ku wanaajiyo oo kuu daayo marka aada waayeesho ee aad xoolahooda u baahato ay xoog iyo xoolo yeeshaan bay adigana ku garab istaagayo manfaco adduun wey walidaalika hadda innaga qoyskeenna soomaaliyeed dib ugu noqo inta badan waalidka iyo waayeelka wixii ay ilmihii ay dhaleen iyo ubadkoodii unbaa biiloo masruufa manfaco aakharana waa leeyahay oo ilmahagu hadduu wanaagto yaryari kaaga dhintana aakharo ku shafaaco qaadi oo 3 ninkay u dhintaan yaryari kaga dhintaan jannaduu ku galayaa wuri nabigu sal alay wasalam haddayba ku waaweynaadaan oy wanaagsanaadaan oy meelo wanaagsan ka gaadhaan darajadana ilahi subxana wa tacala wuxu uhi waladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum darajo weyn jannada ay ka gaaraan ood gaari weyday adna waa lagu dallacsiino waa lagu geyn soo wasiirka aabihii wasiir maaha madaxweynaha aabihina madaxweyne maaha jannada meel weyn hadduu ka gaadhay ilmahaagu adna waa lagu dallacsiin adduunkiina jaga hadduu gaadho waad ku dallici aakhiradiina jaga fiican hadduu ka gaadho waad ku dallici haddaba adduunkiina waa manfaco aakharana waa manfaco saa in loogu dadaalo waa mudan yihin hadafka kale laga leeyahay qoysku waa takaaliifta nolosha in layska kaashado ninku keligii banaanku ka soo shaqeeyey laakiin gurigu ka tegay koobkii wasakhaysnaa iyo sariirtii midna ma goglana markuu soo galay isagoo daalan dabka inuu shida way mixnad wey hooyaduna iyadoo intaa gurigii hawl u taallo banaanka ka soo shaqee kirada iyo biilkana bixi haddii la yidhahdana mixnad iyo mushkilad wey xayaatadu iyo ilmaha intaa leega la dhalayo iskaalmaysi iyo isgarabsi wey cid kula qabata kula daadihisa kula yarjiida kula dheelitirta baad u baahanta walidaalika guurka fawaa'idiisu ninkii mar galay mar labaad bannaan inuu jooga ma rabo ninka iskaabulada ee weli guursan baan garanaynin qoyska iyo guriga qiimihiisee rag iyo dumar waxay soomaalidu yidhaahdaan dhadhamiyaa waalan dhargaana ka daran soomahayn qof marka waxaad ku garanaysaa qiimihii iyo wanaagga iyo iskaashiga ay leedahay
qofkii mar guursadoo gurigu ka dumay orod isdhigin cagta joojin maayo soo mid kale u samayn lahaa orodkiisa laakiin nimaan garanaynin baa orodka laga dheereeyaa saa darteed takaaliiftii xayaatada iyo shu-uunteedii iyo ilmihii faa'iidada lahaa isgarab qabashadiisiina waa la iska kaalmaystaa iyadana nabigana calayhi salaam dardaarankiisii waa lagu fulinayaayo wuxuu yihi tasawaju lwaduuda alwaluuda fa innii mukaahirun bikum lumama yowma alqiyaama ummadda nebi maxamedna waa la badinayaa walidaalika dhalmada hala joojiyo hala yareeya dheg ha u dhigin ummadda inay badato umunku badnida iyo tirada bay isku jeedhaan gaaladu iyagu hadday is yareeyeen dhalmadii innaga muslimka inaan taranno dardarnaa la doonayaa aakharana ummadda nebi maxamed rumaysan ilmo si fiican loo tarbiyeeyey kuwa u qiimo badan uguna wanaagsan ay noqdaan inahaasaan ku daylinaa cashirkeenna maanta inta cashirka xigaan isaga imanayno waxaan idinkaga tegayaa jazakum allahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى